barqa wanaagsan saaxiibaya sida u dhantiin waqti wacan ayaa idin rajaynaa. Waxaan rabaa maanta inaan idinla wadaago qorshe cusub. Hadda ka hor mar waa idinla wadaagay qorshahan cusub oo ah ani asxaabteyda jeebkooda kama warqabo, balse qofkii markaas xoogaa jeebkiisa iska fiican yahay qorshahan cusub inuu igula soo biiro. Qorshahan run ahaantii waa qorshe 99% lacag badan aad ka samayn karto. xalay waxaan rabaa lacagihii aan ka sameeyey inaan idinla wadaago. waxaa ugu horeysay sida ujeedaan steega fiiri $143 ayaan saaray meesha ugu hooseeya. fiiri kan ugu hooseeya $143 halka lacagta ay saareen markaas 1.23. marka kooxdan waxay ahayd Athletic Madrid iyo Villarreal oo run ahaantii positionkooda 50-50 uu ahay, balse uu yahay Spanish La Liga. inta badan labadan kooxood waa laba kooxood oo aad u weerar badan. kaliya marka waxaan dhahay maray 50 daqiiqo ee dhaaftay ayaa waxaan dhahay hal gool ayaa ka imaanaya oo kaliya. marka 78 daqiiqo meelahaasna 75 daqiiqo I don't know meelahaasna way dhalisay. marka $143 ayaa gashay. sida u jeedaana waxa halkaasi ka soo baxday aan ku guuleystay $175.89 wax ka badan $25 oo kale. soo soco imaam qaybtan kale taa u jeedo steeg waa $75 macna accumulator-kuna waa $1.38 sida u jeedaan. halka aan ku guuleystana $103.55 halkii ka timid waxay ka timid sida u jeedaan ciyaarihii socday. waa ciyaaraha horta waa la qiimeeyaa kooxaha si kala weerar badan yihiin. Atlanta Milan run ahaantii waa laba koox oo dhanka awoodu iskaga mid yihiin, laakiin markasta Milan waa koox weyn oo adag. sida u jeedaan intaan ciyaarta bilaabanin ayaa waxaan dhahay laba gool ayaa ka imaanayso. marka Atlanta way dhalisay, Milanna iyadana way dhalisay. tan saddexaad midda labaad aan dhahay Faransa Ligue 1ka kooxdan Lille iyo Paris Germany oo xalay 7 gool ku badisay. marka individual total 2 over 3.4 markaas waxay lahayd 3 gool ayaa lahayd. waxaan dhahay gool afraad ayaa ka imaanaya. goolka afraadna iska dhaafay 7 ay keentayba. sida u jeedaan marka labadan dhibcood isku keendaray $5 saartay halkaan ku guuleystay $103. waa $30 lacag ku dhawaad ah. tan saddexaad imow halkan midda saddexaad oo ugu koreysa ah steeg uu yahay aan iraade steeg uu $100 oo aan ku helay. bal fiiri waxaa saarneed $1.56. marka $1.56 sida u jeedaan kooxdan oo kaliya Paris ayaa waxaan dhahay gool toddobaad xaqiiqda marka idin hadla xilligaasna waxay mareysay 80 daqiiqo iyo mareysay yani macnaha Paris ciyaarteeda ayaan si fiican u fiiriyay. marka waxaan qiyaasay inay keeni karto. marka sida u jeedaan $100 ayaan dhigtay inay gool toddobaad ay keeni karto. 88 daqiiqo ma 87 daqiiqana way dhalisay. sidaas waxaan ku helay $156. markaas waxa igu jirtay $143 kadibna waxay noqotay totalkayga $260. marka $117 ka badan ayaa halkaas aan ka shaqeeyay saacad gudood. marka asxaabta waxaan kula talin lahaa haddii lacala jeebkaaga uu dhan yahay $50 oo kale ama $100 heli karto inaad ciyaarta marka hore intaysan bilaabanin aad qiimeyso. hadda tusaale caawa waxaa wada ciyaaraya Liverpool iyo Man United. xaqiiqdii marka aniga qiyaas ahaanteeda 2 gool meeshaas waa ka imaan kartaa iyo ka badan. marka hore ciyaarta daabo, ciyaarta qiimey. marka aragtay ciyaartan in goolal ka imaan karaan, hal gool ka imaanayo wax waa helaysaa. maanta $5 $10 $20 aad hesho
marka sidaas ayaan kula talin lahaa shaxdi kalena shax macquul oddskeeda uusan badnin xalay sida u jeedaan Chelsea oo double chance noo saarneed waa loos garowday City-na oo badinaysa inkastoo City ay dadaashay ee Brighton keentay marka problem malahan oddskan waa soo yaray doonaa 3 koox ama 4 koox macquulna waa soo dhigi doona aad baa u maasantiin